الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مالي وناكسن dadweynaha waddankeena dhammaantii maalin wanaagsan meesha aad doontaan haddaad joogtaan Djibouti iyo magaalooyinka kale ee gobolladeena waxa aan halkan u soo joogsaday maanta inaan isla warrano in aan ka warrano xaaladda dalkeena in aan sheegno dagaalka aan kula jirno cudurka COVID-19 ee adduunka ragaadiyay ee adduunka xidhxidhay ee kumanyaal kun boqolaal kun oo qof ay ku dhinteen in aan dawalow la yahay in aan ka warrano habka aan u galnay dagaalkaasi halka aan joogno halka aan ku soconno waxa aan damacsanahay inaan gaadhno oo ah inaan ka badbaadno cudurkaasi waxa ogtihiin in ay ilaa hadda 2 qof ay ku geeriyootay raximahumullah waxa aan ka badbaadinayna dad badan inay jiraan dadkaasina ay dhakhtaradii ka soo baxeenna waa wax jira waxa u baahan inaan bogaadin iyo xurmo aan siino waxa weeyaan dadka isku hibay dalkooga dadka dhakhaatiirta ah iyo kuwa kalkaaliyaasha u ah dhammaantood waxaan leenahay jazaakumullahu khayr waxa aad u dadaasheen u dadaaleysaan ummadeenna weey dantooda weey dantiina weey waxaan idin ku bogaadinaynaa hawsha aad haysaan waxaana idinku dhiirinaynaa inaad halkaa ka sii wadaan ilaa inta aan ka gaadhayno inaan ka ciribtirno cudurkaas waddankeena waxa mudan ayagana inaan hambalyeeno ciidamada qalabka sida kuwa booliiska kuwa gendarmeriga kuwa gaardikootiga intaba inaan bogaadino ayaan doonaynaa hawsha ay wadaan inay sii adkeeyaan inay sii wadaan in ay waajibkoogii qaran inay geesinimada ay ku sii wadaan ayaan doonaynaa ayagana waan hambalyeynaa habka aan u dooranay inaan kaga badbaadino 2 nooc qolo waxay tiraahdaa qofku kolkuu dhaco uu dhakhtarada ha tago annaguna waxaan idhi intuuna dhicin dadkii ha laga hortago ha laga badbaadiyo wax aanan hadhow toole kharashkiisa iyo dhibtiisa iyo halaagiisa iyo hoogiisana aan la qaadi karin inta uu gaari lahaa qofku qadarka hadduu noqdo inuu geeriyoodo si kastaba uu ku geeriyoon doonaa laakiin waxa weeyaan silic badan ayaa la socda silicaas ayaan doonaynaa inaan ka hortagno baan waxaanu nidhi war gacmaha hala maydho waxaanu nidhi war walaalahayo kala durka waxaanu nidhi aqaladiina ku ekaada aanu nidhi wax kale maaha wax xanuunka dambe ee kolka uu ku rito cudurku aad la meermeerayso waxa aan badbaadiya leenahay naftiina weey waxa aan badbaadiya leenahay waa walaalihiin weey waa hooyadii waa aabihiin waa dadkiina da'da waxa aan leenahay hal la badbaadiyo kol alla kolkaad ka baxdo aqalkaaga haddii adigu aanad war isku haynin oo cudurkii uu ku soo hayo waxaad gubaysaa waa dadkaaga awalkaba kuwan aad u tagaysay waan soo salaamaya aad leedahana waxaad la doonanaysaa dhib baa la doonanaysaa waxaad la doonanaysaa waxa weeye in aad qabadsiiso adiguna aad moodayso kolkaa inaad caafimaad qabto waxa aan walaalayaal mar labaad ku celinaynaa oo mar saddexaad aan ku celinaynaa in aan joogsada guryihiina ku ekaada annagu wixii ay waajibkeenna ah waan qabanaynaa 2 toddobaad waxaan leenahay waan guulaysanay 2 toddobaad hawsha aan galnay weli fara kama caddo in aan hore u sii wado in aan guryaheena ku ekaan in aan dadka kala durugno ayaa loo baahan yahay shaqaalihii bay noqotay shaqaalahana waxaan leenahay
toddobaadkan soo socda haddii alla yidhaaho waxaan damacsannahay inta ugu dhibaato badan ee ah dadka shaantiyada ka shaqaynaya in aan saacado loo sii daayo inay shaqeeyaan wayaan yeeli doonaa haddii alla yidhaaho intaa ka hor waxaan leenahay waxaan ku celcelinayaa walaalahayow joojiya socodka joojiya intii joojisay ee guryahooga ku egna waxaan leenahay hambalyo waxa aad qabanaysaani wax weyn weey naftiinana aad u qabanaysaan dalkana aad u qabanaysaan kuwa iyagu maalkoogii keenay maalkoogii bixiyey iyagana waxaan leenahay allah idinka abaal mariyo waxaan u haysanaa inay tahay hawl qaran inaad qabateen waajib qaran inaad qabateen dadka muslimiinta ah waxaan leenahay waxa aad qabanaysa maanta sida aan dagaalka looga hor imanayo waxa weeyaan waajib diini ah weey culimadeennuna way noo sheegeen wayna ku celcelin doonaan inta ayaamaha soo socda waxa weeyaan laba qof oo midna buko midna uuna bukin meel ha wada joojinina rasuulkeena yiri calayhi salaatu wasalaam walaaliya waxa aan leenahay dadka reer Jabuuti ma doonayna inaan gaadhno heer aanagu dawlad ahaan aanan karin ba hadii toole inaan ka hortagno ama aan wax ka qaban doonayno waxayna ku xidhan tahay dadkeena mar kalena waan ku xilinayaa walaalayaal sidii aan intii aqbashay ee waajibkooda samaysana waxaan leenahay hambalyo halka ka sii wada inta kalena waxaan leenahay joogsada hal kalima jiro illa maanta waxaan dadaalkeena oo dhan u ahaa inaan ka badbaadino dadkeena silca inaan ka badbaadino laakiin intii badnayd way niga arkaya way bogsanayaan dhowr cisho 10 cisho 14 cisho markay ku jiraan way soo baxayaan marka dib looga qaado waxa la arkaa inay bogsadeen konton meelaha way gaarayaan iminka inta bogsatay kuwaana waxaan u rajaynaynaa inay ogaadaan sida ay wax u socdaan xaaladda aan ku jirno maanta kolkaan eegnay inaan toddobaad kale ama 10 cisho oo kale haddii alla yidhaahdo aan sii wadno fadhiga waxaanan rajaynaynaa inaan natiijooyin wanaagsan aan la kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sii wada dagaalkaas aan ku wada jirno sidaan u dhannahay waana guuleysanaynaa insha Allah ta'ala